السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما أنتم عم تسوقنا هاي دقمة ياخشي حافظ الجونجل. xanaanada caruurta iyo agoonta oo ay gacanta ku hayso hay'adda saska ayay maanta u qabatay xaflad munaasabad dhiirigelin ah. hay'adda ayaa qaybtii saddexaad ka hirgelisay magaalada Muqdisho. waxaa ka soo qayb galay madaxda hay'adda ugu sareysa gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo degmada Yaaqshiid. ugu horeyna waxaa goobta ka hadlay madaxa Muqdisho Maxamed Aadan Raage iyo Ibraahim Raage munaasabada ka soo qayb galay. hay'adda sas oo ay madax u ahayd deeqo maxamuud ciid oo hadda mataqaana martino aan loo joogtay maadaama aanay madaxii ugu sarreeyay magaalada Muqdisho aan ahay sidaa daraaddeed waxqabadka meeshaan ka bilaabanin Soomaaliya hay'adda mar hore bilaabatay waxaan ka furnay garow ka furnay midii labaad xamar aan mataqaana aan maanta oo ay tahay mataqaana taariikhda aan saddex tobanka bisha mataqaana ee maanta farxad weyn noo tahay annaga hay'addan sideedaba waxaa asal u ah ama maamo u ah ama hormuud u ah waa dhalinyaro oo mataqaana runtii dugsiga sare ee bartamaha ay ka baxday iyo danyar ah ayaan soo abaabulay oo soo gudbiyey oo suugan aad ugu mahadcelisay uguna faraxday marka aniga dadii caruuraan ku leeyahay waalidiin kale oo hadda aniga wakiil tahay aqoon u badan طبعا يسجل عروره ورحمه الله وبركاته وعلى السلامه والله الصوماليين قالوا بقى جوجتا كون داون دور iyo inta hadda joogto waalidiinta yaalka degmada Yaaqshiid aan maanta marti ku nahay aniga magacayga waxa la yiraahdaa Deeqa Maxamed Ciid waxaan gudoomiye hay'adda saska oo magaceedu yahay hay'adda caawisa caruurta agoonta iyo danyarta hay'adda waxay dhisantay sanadkii 2017 mana ahan mid hadda kaliya Yaaqshiid aan ka furayno insha Allah waxaan nahay group bartamaha la yiraahdo iskool ka baxay meedi central 85 oo waliba groupkaas bartamaha ah in yar ee ka kooban ee asalka isugu magacaawdo 8 qof ee macallinkooda oo jeclaaday in dadka Soomaaliyeed ee baahida u qabay iskoolaadka agoontii danyartii cilmigeena inaan dib inta u soo celino aan uga faa'iideyno iskoolkeena ugu weyn wuxuu ku yaalaa Boosaaso oo 2 sano hadda ka furan yahay halkaas oo ilmaha lagu quudiyo cuntaha noqoto ardayha noqoto buugaagha noqoto wax walba ay ciyaalka u baahan yihiin waxaana hore u ballan qaaday oo dhowr goor idaacadaha ka sheegay agoonka haddii aan la gaari weyno iskool inaan dugsi quraan la gaarno haddii tabarta loo diido inaan la gaarno wax yar uu cuno haddaan gaari weyno inaan dhar ciida la gaarno mar walba waxaan ku xirannahay caawinaadda aan Soomaali weyn ka helo walaalahan Soomaaliyeed ee sadaqada jecel marka hay'adda waa hay'ad kaliya taagan waa hay'ad yar oo 7-8 qofood ah ee jecelna inay wadankii oo dhan wax gaarsiiso marka waxaan aad iyo aad فرين ودرايا مع القبائل الصوماليين dadkeena Soomaaliyeed oo mar walba aan ka sugeeyna gacan heel iyo hoobo insha Allah waxaan rajaynayaa sida iskoolka Boosaaso uu weynaaday oo shahaadooyin ay uga qaataan kuwaana oo maanta martida aan u nahay dugsiga Quraanka ee Boondheer ku yaal oo macalinkiisa hadda aan wareysan doono Cabdi Xakiin asagana halka xaadir ku ah ilaahay ajri xasanaad ha ka siiyo macalinkeeda oo halkan ku xusaayo Xuseen Maxamed Aadan Xuseen Kaafi oo iskoolka Qanaat ku xusan ninka hay'addan nala aasaasay anagoo group yar ah bartamaha kadib marka waxa u maleynaa insha Allah ta'ala hadii ilaahay yira waa isla joognaa wixii wara hay'adeena waa sii soconaysaa amba 10 qof noqoto amba 20 qof noqoto Soomaali weyn aan fariin u direynaa agoonta inaan la iloobin danyarta inaan la iloobin baahida inaan uga tagin ilmaheena wax yar oo sahlan ee dib wax ku bartaan dadkeena qurba joogta ah laakiin kuwaan xataa buugaysan awoodin fiigi iskoolkaysan awoodin qutriyoonkaysan awoodin inaan dib dalka u xasuusano taasaan fariin u dirayaa iskool bartamaha fariin u dirayaa oo magaca iskoolka aan ka soo baxay ah asalka bartamaha mahadcelin u dirayaa macalinkayga Xuseen mahadcelin u dirayaa marka kadib soo noqosho kadib insha Allah waxaan halka uga mahadcelinayaa gudoomiyaha xaafadda Yaaqshiid oo aan maanta xaadir halkan ku ahayn laakiin ma sha Allah tabarakallah na sharfay halkaan na yiri abta xogaa inaa noo ka tahay raali ahaada
قدومينا هلكا ما شاء الله ما أنت نجم مقن أحمد عبد الله محمد عريف لكن هلكا ما أنت نقشر في ما شاء الله قدومي كحجينك أرمها برشدة برشدة ودقمة عبد الله يوسف محمد شيلو ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام كدب قدوميها عيادة أساسي iyo tiimka la shaqeynaya dhammaan kasoo qaybgalayaasha waalidiinta iyo bahda saxaafadda caruurta halkaan u joogta inay safarkii waxbarashada ka bilaabaan insha allahu tabaaraka wa tacaala gudoomiyaha ururka haweenka degmada Yakshiid maama Kaaga Cabdi Cali Suuq odayaasha dhaqanka dhammaan waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka mar kale assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh. سلام كدب وعي فرحة يا شرف إن كسر من قلو فريتان كأما حريقتر كمناسبة عن تاريخي له وأن كنت فرينه سكول كان لو تلقى لدي تياغونتا إن وحبرش العقلانة وبوابته اللي يبينايو وقلماته اللي يبينايو ونحكه اللي يبينايو waxay iga farxad badan runtii ma jiraan waa wixii degmadu ay u dhisnayd ama u joogtay ama doorkeeda ama waajibaadkeeda ay ahaayeen balse dadka indheergaradka ah iyo cuqaasha deegaankan oo ay ka mid tahay gudoomiye deeqo iyo tiimkeeduba waxay garteen in mas-uuliyadda ay nala wadaagaan oo dadkeeda ama dadkooda iyo bulshadooda iyo maxaan ku yidhahdaa deegaanka ay iska kaashadaan arrintan in la hirgeliyo runtii waxaan aaminsannahay waajibaad iyo mas-uuliyad annagana saarnayd inay naga fududeeyeen waxaana ku garab istaagaynaa wax kasta oo hiil iyo hoob ah si aan u gaadhno himilada carruurtan ama ubadkan Soomaaliyeed ee mustaqbalka iftiimaya leh insha allahu tabaaraka wa tacaala. qof kasta oo halkan jooga waxaa laga yaabaa dadka waaweyn taariikhdooda waxbarasho ama halgankooda nololeed markay dib ugu laabtaan dalkan wuxuu soo maray xaalado adag oo aan lagu fakari karin in xataa waxbarasho laga shaqeeyo. xaalado amniya la soo maray dalkan oo burbursana la soo maray iyadoo laqaxaya la soo maray iyadoo hoobiyaha iyo BM-ka iyo madaafiicdu ay yihiin waxa keliya oo dadku ay ku sheekaystaan la soo maray. waxaan aaminsanahay in la galay aarankii iyo barwaaqadii iyo baraaradii ummadda Soomaaliyeed sugaysay mar haddii aan isku tashanay. waxaan leeyahay hay'adda iyo tiimka halkaan yimid ee ka furay iskuulka ee soo indhiindheeyey ee soo qabanqaabiyey hawsha quruxda badan ee hadaalina hana caajisina annaguna habeen iyo maalin idinka hurdi mayno mana idin hadanayna garabkiina insha allahu tabaaraka wa tacaala. degmooyinka qaar waxaa laga yaabaa inay ku cuslaato xiriirkooda laakiin degmada Yakshiid waxaan ku faanaynaa in albaabadeenu furan yihiin haddiiba la yidhaahdo dan yaraa la cawnaa. marka idin dhihi mayno hay-adee idin wadata yaa idin maalgelinaya waxaasoo dhan annaga waa naga xirxiran yihiin waxaa noo furan keliya inaad dan yarta caawinaysaan. marka waa idinku soo dhaweynaynaa degmada Yakshiid ubadka iyo waalidiinta halkaan joogaan waxaan leenahay ka faa'iidaysta fursaddan qaaliga ah. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. halkaasi hay-adda saaska ka bixisay agabyada oo waxbarashada oo dhammaystiran sida buwaagta qalimada dharka iyo raashin. ugu dambeynna waxaa hadalkiisa soo gunaanaday ama soo helay gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada Yakshiid. arrintan in la hirgeliyo runtii waxaan aaminsannahay waajibaad iyo mas-uuliyad annagana saarnayd inay naga fududeeyeen waxaana ku garab istaagaynaa wax kasta oo hiil iyo hoob ah si aan u gaadhno
badan